هاي ما أنت واد إن صومالي واد وك باهن تهاي أو يقرب استعجل كران مجرى والله عبشوين وان قبا Soomaali kuliba waa inay garab istaagayso waan hubaa maadaama aan ahay nin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونسلم دمان أصحاب قالي وكحرن حمسة أوفيشال meel kasta walaalahayga qaaliga daafaca caalamka ka joogtaan waxaan leeyahay xilliga joogtaan wacan oo wanaagsan dhamaantii qof kasta iyo meesha jooga wacan oo wanaagsan qof kasta xilliga jooga wacan oo wanaagsan ina caafimaad qabtaan baarjeeniya sida anagoo caafimaad qabna u soo kacnay walaalahayga sharaf booda ama buuqa ima gaadaan wada jirtan saro leysan ima gaadaan ama qiiba baala leesha ima gaadaan caalamkayga waa quri iskiifo booda ama buuqa ima gaadaan wada jirtan saro leysan ima gaadaan ama qiiba baala leesha ima gaadaan caalamkayga waa quri iskiifo boqorka banaanka walaalahayga sharafta leh maanta waxaan idin hayaa fiidiyogaas oo ku saabsan oo soo geliyo walaalkeen Lii Caato sida qaarkiin aragteen qaarkaan aragna hadda ayaan soo gelinaya fiidiyogaas oo ku saabsan wiil walaalkeen oo Soomaaliyeed oo naafa ah naafa way wiilkaas sida hadda aan ogaadeen YouTube-ka ayuu ku soo biiray YouTube channel ayuu leeyahay YouTube channel-kiisa halkaas shashada ayaan soo saari doonaa wiilka bal aan daawano insha Allah waa wiil Curyaana oo lixaadkiisu dhameystirnayn oo wadanka Turkiga jooga oo wadanka saa afkiisa kaga shakeynaya wadanka Turkiga hadda jooga dhakhtar buu u aaday marka walaalahayga qaaliga wuxuu u baahan wiilkaas in la garab istaago wada qofkii wax haystana wax uu awoodaa marka hadda caafimaad qabtid oo qof walaalkaaga wax jiraan caafimaad qabin hadda lixaadka dhameystiran yihiin qof Soomaaliyeed walaalkaaga wax jira aan lixaadkiisu dhameystirnayn marka walaal macaan waa lagu xisaabtamaya xoog iyo caafimaadka waa la isku keen fiirinayaa waxaan leeyahay bal ila soo daawada fiidiyo murugadiisa ku taa rakaleeto oo magaalada igu soo dhaweeyo garab qabtayo ilaa hadda ilaa walaalkaana ninkan ay yiri ana mas'uuliyadaas qaada ilaa walaalka kale maxanta ilaa walaalka kaaga yimaado ana mas'uuliyadda qaada ay yiri oo ay ku garab taagnaan walaal waxba ka baqin ninkan ana intaas soo caawiyay qaralaasiyo ما شاء الله شخصي كان محمد شخصي إلهي ديب إن كرمني مو ديبي سوق إن كان وحبي يسكب قليل وهذا حالة دي سي مانت إسطنبول لحدة إذا أو الأوجي مقالة ذا نسيد وين تهاي أيوه رجع على استينا كان ولا الكيسة إنه قرب كيس استاجو وإلا وقف ولا لا زينه اسكو مال لو جتجين إلا أوجي إيمانه وقرب كيس استاجو براد جساكم الله غير هذه ما صنت هاي سيدا هذا تهانا ولي جاهز كبدل سودو marka walaalahayga sharafta leh waa u jeedin fiidiyowga waa soo daawateen wallahi aad iyo aad baa umurgooday fiidiyowga aad iyo aad mugdiisa u wataa waxa lagu fiirinayaa qofkii caafimaad haysta qofkii dhaqaale ku dhaama waa u jeedaa codkiisa wiilkaas meel dheer ku soo dhigay marka walaalahayga qaaliga mid koowaad qofkii wax awooda caawin kara ilaahina waa caawina insha Allah umad Soomaaliyeed waa caawin doonta insha Allah si shar gareeya soo barnaamijka uu gaaro asxaab dad fara badan Soomaaliyeed uu aragto waxaan la share gareeya like ku booba soo asxaab badan u aragto ma sha Allah waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga waxaan leeyahay fiidiyowga si fiican dhameysta insha Allah marka dhameystaan screenshot-ka ayaan soo saarayaa sawirkiisa ayaan soo saarayaa wiilka YouTube-kiisa waxaa kaloo soo saarayaa diila idma lambarkiisa insha Allah waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga fiidiyowga tartiibtiin dhameysta una soo duceeyay wiilka walaalkeen la caafiyo insha Allah siina shargareysa asxaab badan u gaaro qofkii wax haystana macnaha hantidiisa loo fiirinayaa qofkii caafimaad haystana caafimaadkiisa marka walaalahayga qaaliga is garab istaagno aanu caawino wiilkaasi wada jira kuna qalbiga ka caawino duceeyno si qofkii wax haystana uu caawiyo qofkii kalena uu duceeyo si shargarey barnaamijka aad كاشي وهي جرينيسا qabow guuli lama qabsanin اوكي ما قبوغ ميا مسو يعني xanuun way hayaho yani waxaan hayn jirkiisa kala bar oo shaqeynayna hadii la jarayo maanta ma ogi سفيان dhiigiya marka inta koleeto isku caburinayo qabowga markaas uma adkeysan karo سفيان haddana xitaa yani qabow saas qolka kama jiro yani waa هيتكا بشيدان بكل هيتكا بشيدان bal yani waa fadhigana way dhiba badanaa fadhigana ku dhiba amsaaq waxa waaye marna inaan aad ugu dheeraan halkan arrinka haysto arin aad iyo aad u murugo badan wuxuu wali rajo ka leeyahay
inuu ilmihiisa dib ula midoobo, inuu lugihiisa ku istaago. dhaqaatiirta markuu u tagana waxaa la leeyahay rajo weyn ayaa leedahay, boqolkiiba 80 boqolkiiba 80 uu dhakhtarka rajaleeda u dhahay. rajaa leedahay, waa rajo suge. waxa kaliya oo maanta u baahan yahay waa garabkiina. Cabsaaq maadaama janalkan dad fara badan hore aan uga caawiyey, weli waxaa ku jira dad weli damiirkooda aana dhiman oo weli nool, una baahan qofka walaalkooda ee dhiban inay garab siiyaan. ayagana ajar Allah ka siiyo. maxaad hadda ka codsanaysaa? mana leedahay lambar wax lagugu soo diri karo mase akoon uu kuu furan yahay oo maanta caawa halkan aan usii dhigno? maya lambar marka walaalahayga sharafta leh waa ujeedeen fiidiyooga waa soo daawateen. wallaahi aad iyo aad baa umurugooday, fiidiyooga aad iyo aad mugdiisa u wataa. waxaa lagu fiirinayaa qofkii caafimaad haysta, qofkii dhaqaale ku dhaama. waa ujeedaa codkiisa wiilkaas meel dheer kusoo dhigay. marka walaalahayga qaaliga midda koowaad qofkii wax awooda baa caawin kara, ilaahina waa caawina insha Allah. ummadda Soomaaliyeed waa caawin doontaa insha Allah. sii share gareeya soo barnaamijka u gaaro asxaab dad fara badan Soomaali weynta u aragto. waxaan la share gareeya like ku booba soo asxaab badan u aragto. maasha Allah waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga. waxaan leeyahay fiidiyooga si fiican dhamaysta insha Allah. marka dhamaystaan screenshot-ka ayaan soo saarayaa, sawirkiisa ayaan soo saarayaa wiilka YouTube-kiisa. waxaa kaloo soo saarayaa dilaa idma lambarkiisa insha Allah. waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga. fiidiyooga tartiibtiin dhamaysta una soo duceeyay wiilka walaalka in la caafiyo insha Allah. siina share gareeysa asxaab badan u gaaro. qofkii wax haystana macnaha hantidiisa loo fiirinayaa, qofkii caafimaad haystana caafimaadkiisa. marka walaalahayga qaaliga is garab istaagno, aanu caawino wiilkaasi wada jira, kuna qalbiga ka caawino, duceyno si qofkii wax haystana uu caawiyo, qofkii kalena uu duceeyo. sii share gareey barnaamijka aad iyo aad u daawateen. aad iyo aad baa mahadsantiin. sii share gareeyso asxaab badan u gaaro oo wiilka walaalkeena loo caawiyo. ugu yaraan waxaan leeyahay qofkii share gareeya iyo qofkii u duceeyo faa'iido ka tahay, ajri xasanaad buu ka helayaa. qof walaalkaayo dhibaataysan markaa caawisid waa ku mahadsan. sida qurux badan ay la socotaan kana raad lahaad qaylada meesha xaafadda ciyaal ayaa ku ciyaaraya. waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga sharafta waa mahadsantiin. sida qurux badan ay u xirantihiin. waxaan idin rajeynayaa khayr badan iyo caafimaad badan. ilaahay bilaayada naga qabto dhammaanteen meel kasta oo joogno ummadda muslimiinta. waxaan idin rajeynayaa caafimaad khayr baan idin rajeynayaa walaalahayga sharafta leh. waxaan leeyahay intaa fiidiyoo la mid ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.